بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن وناسن خيارتها هودا naga daawanaysay idil ahaantiinba meel kasta oo caalamka nagala socotaan ku soo dhawaada qodob aad u muhiim ah oo aan maanta ku soo qaadanayna barnaamijkeena qodobkaas oo salka ku haya hooyada ilmaha jaqsiisa iyo khatarta caafimaad ee ay kala kulanto isxakameynteeda xiriirka wacyigelinta caafimaadka ee dalka Jarmalka ayaa ka digay in ay hooyada ilmaha jaqsiisa ay samayso isxakameyn miisaanka lagu dhimayo waxa aanay ku sababayeen in ay hooyada ku dhacayso nafaqo xumo ka imanaysa curiyaasha muhiimka ah ee la yaraanaya dhimista cuntada taasina ay khatar caafimaad ku keenayso hooyada iyo ilmaha si isku mid ah dhakhaatiirtu waxay sheegeen in muddada ay gabadhu ilmaha naaska ku duwayso uu jirkeedu u baahan yahay kalooriyo aad ugu badan inta ay u baahan tahay marka aanay ilmaha naaska siinayn oo gaaraya 2000 ilaa 2500 warbixin ka soo baxday xarunta xiriirka wacyigelinta caafimaadka ee dalka Jarmalka ayaa lagu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in nidaamka cunto ee jirka hooyadu uu helayo xilligani uu noqdo mid isu dheelitiran noocyadiisuna kala duwan yihiin si uu jirku uga helo fitamiino iyo macdanaha lagama maarmaanka ah waxa ay dhakhaatiirtu ku talinayaan in hooyada ilmaha jaqsiisa ay u baahan tahay noocyada khudradda iyo midhaha caanaha iyo waliba cuntooyin laga dheegto kuwa gan kale hilibka aanu dufanku ku badnayn kalluunka dufanku ku badan yahay sida salamoonka iyo sardeenka warbixintan xarunta ka soo baxday waxa lagu sheegay in caafimaad ahaan lagu talinayn in hooyadu inta ay ilmaha naaska siinayso ay iska dayso nooc kasta oo cunto ah haddii ay u aragto in ay iska deyntaasi lagama maarmaan tahayna waxaa qasab ah in ay la tashato dhakhtar ku takhasusay nafaqada si uu u qiimeeyo nafaqada iyo macdanaha kala duwan ee ay hooyada iyo ilmuhu ku waayi karaan iska deynta cuntadaas iyo khatarta ka dhalan karta intaas ayaynu maanta ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh